الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمان مد الصومالية دوان سلامي مالك صوت كسوغنتهين ولاشين هند عبدي وإنك سلامي سلامتي إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوي أيامها نسمعنا سوق القلين وحوي واسكها ولسك مشغول سنة عاون إن شاء الله. waxaan rabaa inaan fiidiyoogan macnaha uga hadlo saddex arrimood oo ah ciwaanka sida ah oo ah macnaha mucaaradka Soomaalida waxaan ka baranay qabyaaladda waxaan ka baranay iyo qarannimada waxaan ka baranay saddexda arrimood insha Allah. dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa ururkayga qiimaha badan iyo qaayaha ee midnimo qaran gudoomiye JJ Cabdisalaam Gentleman ودري بس وكوبي كرهنتي عبد الوهاب شيل الله مستعان أحمد عمر ميوها يركي مولود ميوها وبدن هاي ولا بدن هاي تيم كم وذا مقعابي كره قفكستو وناقة شعل وشعل من ماذا يو ذا شركة ومدة الصوماليات أيام سلام يا كوي وحي نقل لابن ومارا مركا نقشن شيرن إلهي وحن ودينا إنه عافمات لابه هذا سيو wanaaga iyo wada jirna kana tuso iyo qarnimada iyo iskaashiga wuxuu u leeyahay faa'iido u leeyahay Allah inuu tuso. marka hadaan hadda mucaaradka ku hormar waxaan ka baranay mucaaradka Soomaalida waxaan ka baranay tiisa haduu waaye inuu san cid kale u danaynin waxyaabaha aan ka baranay ugu sareysa ah runtii midaas ah waxaan ka baranay inuu tiisa haduu waayo oo si cid danbaba u danaynin dal iyo dad shaqo uu soo kulahayn. haddaan tusaale hadda ku soo qaato dhowr qof oo hadda intii dawladdaani jirtay sanadkii ay jirtay laga yaabo in xil laga qaaday qofkana hadduu marka ahaa adeege oo macnaha nin walba markuu waayay xilkii uu maartay soo laba lixaadsado uu noqday mucaarad awal asagoo maxaafid ahaa halka waxaa nooga cadaatay oo shacabka Soomaaliyeed runtii loo baahan yahay inay aad u iftiimiyaan indhahooda ay indhaha ku hayaan kana macnaha kana munaashaqoodaan macnaha iska weydiiyaan qof raali iga ahaada waan wifi-ga iga yara tagay khadka iga yara baxay iga raali ahaada. marka waxa way mucaaradka Soomaalida waxyaabaha hadda aan ka baranayno haddaan shacabka Soomaaliyeed nahay waxa kamid ah horta dadkii marka hore waxay u xilka u dhaaranayaan oo gacanta u saarayaan kitaabada u qarankan u shaqeynayaan oo dadka iyo dalka u shaqeynayaan laakiin waxa cadaata hadii qofka xilka uu waayo sabab kastaba ha ku waaye inuu yahay qof asagu danaysanaya laakiin aan shacabka u danaynin waxaana daliil u ah mucaaradnimada ay la soo istaagayaan. tusaale haddaan ka soo qaato Shambalo shan dhageysanaya klibyadiisa anigu siyaasi baan ahay haddaan gudaha ku jirin banaanka haddaan tagaray waa mucaaradaya lid baan ku ahay marka yaan ka dareemay taa waxa way macnaheedu hadda anaga miyaad noo adeegaysa marka mise hadda aad adeeganayo waa su'aalahaas weydiina waxay tahay Shambalo show iyo wixii la mid ah ma idinka danihii shakhsiyadiina markii hore hawshan masuuliyadan u qaadateen oo adeeganayseen mise waxaad u adeegsan shacabka Soomaaliyeed qofkii shacabka Soomaaliyeed u adeegayo hadda xil laga qaado waa asaga waa nafisay baan qabaa sababta masuuliyad adag baa ka dhacday waaba dabayl baa maraysaan qabaa ducuna ku dari lahaa banaankaasna wuxuu ka qaban karo oo wanaaga ummad shacabka Soomaaliyeed mar walba adeegihu u ahaa buu ahaanaya laakiin qofku markuu xil waayo geesaha la soo baxa waa nin asagu danaysanayay ummada kalena u shaqeynayay macnaha shacabka Soomaaliyeed u shaqeynin dadna kala hayn. marka horta inaan taa kala fahmno waa muhiim. midda kale waxaan la yaabanahay mucaaradka Soomaalida waxyaabaha aan kula yaabana waxay tahay adduunka aan joogno waxaan ku naqaanaa mucaaradku wuxuu soo mucaaradaa dawladda waxyaabaha uu ku dhaliilahayo oo ah waxyaabo faa'iido u keenaya marka iyagu haddaan maanta fursad u helay bay ku faantamaan waxyaabaha ay bedel lahayeen bay shacabka u soo bandhigaan oo meeshan shacabka lagu gorgortamaayo qof jeeb gooniya wata oo wax ku gorgortamay kaligiis jeeb wata lagama yaqaano caalamka kale mucaaradka caalamka kale shacabkay ka gadaan waxyaabaha ay u faa'iideeyeen oo kaga faa'iido badnaanayaan ama ay kaga wanaagsanaanayaan dawladda markaa joogta laakiin Soomaalida waxa normal u noqotay oo joogto u noqotay kii xil waaya
inuu dagaal la soo istaago oo laba dhagax qaato ujeedkeenu macnaha marka annagii waxaan waanaan fahamnaa haddaan shacabka soomaaliyeed nahay dadkani inaanay marnaba annaga noo shaqaynayn sababtoo ah hadda wuxuu mucaarada annaga unba hadduu noo shaqaynayay annaguna xilkayagii maaragtay dowladdii ay u garatay qof kale inuu qabto waaba la nasiyey maxaa wadoo ka caraysiinaya muu weli volunteer iyo wuxuu u qaban karo dadkiisa usii qabto hadduu daacad ahaa marka weli waxaa naga buuxa dadkii shisheeyaha u adeegayay oo amxaarada u tababarnaa oo imaaraadka u tababarnaa oo shisheeyaha adeegooda aad ugu naga nuglaa waa horta meel walba weli haysta oo nagu badan ilaahay idankiina hal baa loo siibayaa hal baa loo siibayaa waxaan laakiin aad iyo aad aan isagana ugu farxay warbixin uu bixinaya cosoble oo asagu markii hore laftigiisa kuwii imaaraadka la jiray oo mucaaradkaha lagu ku eedaysnaa laakiin bini aadanka damiir buu leeyahay oo qofka caqligiisu inuu ka shaqaysiyo waa muhiim markii hadda xaaladda markii hore halkaasay ula ekay laakiin markuu arkay wadada ay ku toostay dowladdii wuxuu yidhi anu dowladda yaan la mucaaradan dowladda halala shaqeeya xilkaana cid soo faragelisay male si xaqu ku dhacay marka si fiican baan u boorinaynaa ninkaasna hadalkiisa aad baan u boorinaynaa runtii cusublah uu hadalku ka yiri sababtoo hadduu arkay dalkiisi iyo dowladdiisa inay meel fiican u socoto meel xun inuu weligaas iyo mucaarad ahaado wax macnaha ugu jira male marka saboloshana waxaan aad iyo aad aan uga digaynaa iyo wixii lamid oo mucaaradaba hadda idin ogaana inaad dantiina qabsanayseen oo idinku aad shaqaysanayseen hawaana iska kiicinaynaa hadda kadib maxaa yeelay waxaad u dhaarateen ama xilka u hayseen shacab soomaaliyeed markaad xilki weydaanna waa banaankaad mucaarad iyo mu'aamaro la taagantihiin macnaheedu waxa weeye awalba idinkaad daraysanaya ciddaad u shaqaynayseena idinkaa og annaga noomiinaa shaqaynayn marka mucaaradka soomaaliya wax xigmad le ma ahan waa wax jeebkooda iyo dana kale u adeegaya shacabkuna waa inay ka digtoonaadaan waana ilaahay mahabdiis in qabyaalad lagaba gudbayba hadda sababto qabiilkii oran lahaa qof baa layga ceshay walaalkiis kale un baa la keeni oo maxaafadood sharci dowladdiisa iyo dadkiisa la shaqaysanaya kii shaqaysan waayan waa la siibahayaa ama mara gaduudan jeebka ku xiro ama madaxa ku duubo aday kuu taallaa marka qof walba wuxuu qabto iyo qalad ku geysta waa wax qoran oo wax macnaha la isaga haraya maaha mucaaradka soomaalida waxay u baahan yihiin runtii inay tababaro qaataan la jaan qaadi kara caalamka kale hadda dhismaha oo kale caalamkii baa laga qaadanayaa wixii kaloo caalamka waa ka qaadanay mucaaradka maxaa mucaaradka soomaalidu maxay uga baran waayeen mucaaradka adduunka nidaam sida wax loo mucaarado maxay u baran waxa la mucaarado sideedaba maxay u fahmi waayeen xilligaa wax la mucaaradaa noocee wax loo mucaaradaa maxay u fahmi waayeen waa inay tareennimo soo qaataan horena waan u iri runtii waxay u baahan yihin xirfad bay u baahan yihin meeshaan haddii 720 sano ay qasnayd oo nin walba anaa taabsaday iyo anaa yeelay iyo anaa xoog bay anaa maanta iigu jirta hadday ahayd waa dhammaata taas biniaadamku waa inay fahmaan waxa inay dhammaan karaan waa dhammaatay ha la quusto taa ha laga quusto soomaali waa socotay wiilkii yarka ahay ood maaragtay siyaasiyow aad qoriga inta u dhiibatay aad 100 shilin ku dili jirtana hortiisuu 200 iyo 300 ba u helay cidina ka xigin asaguna madax isu yahay qabna ku leeyahay qarna u shaqaysanayo magac iyo muunadna uu ku leeyahay caawa hadduu dhintana uu shilinkiisu usan dhimanayn mushaarkiisu dhimanayn isagoo heli kara maxaa ku daba dhigaya marka kuwaad baabi'isanood curyaanka ka dhigtaanba meel kuma ogadin boqolaal baad hooyooyinka ka gablamayseen oo ina meel ku ogeyn marka curyaha horta nimanka mucaaradka soomaalida horta taa looga baxo waa in dantooda looga baxaa taa waa cid xoogay ku duulaanba ma haystaan iyo baalle maxayba ku duuli marka inaysa awalba qori qaadanayn waa la ogaay dad unbay haligi jireen oo wareerin jireen tiina waa dhammaatay alxamdulilah waa wax laga gudbay taa waa mucaaradka qabyaalad maxaan ka baranay qabyaalad waxaan ka baranay aan isweydiino tan somalilan hadda aan ka soo qaadano waxay socoto horta waa taa jeeganta isu bedeshay maalin waxaan dhaawanaya clip gabar yar oo hodan muuse la yirahdo tiri hargeysaan ku dhasho weli taaganahay ilaa iyo haddana hay-ad dowladeed iyo wasaarad dowladeed meelay ku taal ma arag ilma aniga ilaa leegahoo yaa 10 shaqo haystay tiri midkiiba 5 shaqo ka shaqaynahaya mid xoog hayaa habad lahayo wuxuu lahaa dowladda hoose oo maaragtay mid asagana markii la ceyrsho mid walba markii la ceyrsho macna burqan haya wuxuu yiri xoogayihii maxay ahayto dowladda hoose saxiixisi dad kala saxiixanaya intaas oo qof oo shaqaalaha inta waxa ka soo shaqo tagayo malaha 1000 iyo for example 400 baa shaqaysa 1000 lacagta guryaha ku qaadanayaan marka corruption ka jira heerka ay gaadhay baa wuxuu yahay heer aad u xun waxay maraysaa in macnaha dawlad kale ay dibadda isaga dhawaaqdo
Somaliland la sheegayo dhanna waa boosha reer Saxaaq horta Somaliland kale meeshan ma jirto ayagu ma magaca isu bixiyay ee Somaliland wax la dhaho horta ma jirto beesha reer Saxaaq waa horta Somaliland isu magacaabay waa ku kaligood hadday ku taana waa lagu kala qaybsamay xaq soor baa laga waayay ee maxay tahay midnimo laga waayay cadaalad baa laga waayay lagu kala tag marka qabyaaladna waa taas inay ka dhamaato ha sugin oo ay meel final ku noqoto lagama yaabo markay Soomaali layntii macnaha wadankii gobolkii waqooyi galbeed dadkii la deganaa markay u xaq soori waayeen isu keeni waayeen la cadaalad baa la isugu yimaaday cadaalad darro iyo xaq darro la isugu yimaadee ayagii baa isku soo haray Soomaha ayaga hadda isku soo hareen ayagii baa laba garab baa loo kala go'ay laba qabiil baa laba jifa isgaashaan buursatay intii kala geeska la galiyay dawladdiina laga qadiyay waxna aan loo qaban ayaguna aqliga ma laha indhahana ma laha way arkaan marka horta sideeda bilaada waxay ku tusaysaa nidaamkan qabyaaladu inaysan baraka lahayn midda kalena waxay ku tusaysaa raggan horjoogayaasha inay yihiin raggii qarankii Soomaaliya 1991 soo dumiyay inay yihiin qarankii Soomaaliya raggii dumiyay inay yihiin ujeedkay u duminayeen midka maanta taagan inuu yahay horta Soomaalidu dadku inay inta fahmaan way shacabku meel joogaanba horta ha fahmaan waliba dhalinyarada Soomaaliland oo beenta laga buuxiyay fadlan wala xisaan maskaxdiina ka shaqaysiya maxaa yeelay qofkan hadduu caburis iyo dhibaato iyo cadaadis iyo cadaalad xumo qabay asagu ma sameeyeen illa shala asaga xanuunkii asagu hayaay laakiin xanuun ma hayne xanuunka hadda maanta hayaa shalana hayay waa ayaga xanuunsan qabyaalad bay u xanuunsanaayeen qoqob bay u xanuunsanaayeen qaran la'aan bay u xanuunsanaayeen dhiigga shacabka ay u xanuunsanaayeen abaar iyo amas inay dhigaan Soomaaliya u xanuunsanaayeen tahriib inay galiyaan inay magafo u waraan inay badaha ku harqiyaan intaas u amraayeen waana ku jiraan taasay waana intaas ayagu intaas ku raaxaystaan intaas ayaga anfacda oo ay ku raaxaystaan waxaana ku ugu daliila dhaqankooda kaaga filan mar hadday beeshii kaliya isku soo hartay inta gobolka isu keeni waayeen 720 sano bay waqooyi dhowrka qabiilo la degtay isu keeni waayeen markaas isaa kala gureen oo maxay kala rifeen oo jeegaan iyo heblaayo iyo maro la bixeen macna wuxuu natiijo male marka waxaan ugu baaqayaa gabadhii yaraydo xiraydo oo naciima ilaahay gacantooda ka soo daayo iyadoo nabad qabta yaa waxaan maqlay nin loo yaro anigu sideedaba hata waa kuwid gareeyay baashi la oran jiray Soomaalilandnimadii waa iska daayay ma salaam iga ta waa ka way waa ka dhaqaaqay waa iga bas buu yiri carada ilaahay baan aadaya maxay yeelay wax aan ku haysano oo macnaha loogu xisaabo ma jirto bini aadanku marka wuxuu wax walba indhihiisa kaga dhagay marka durbaan been la tumo fora waalo socona laakiin kadib way ka shifaya way fashilaya wuuna fashilmay hadda ma salaam marka ayagana qulubtooda waxa beenta laga dharjiyay iyo beenta maarta laga buuxiyo horta ayagana qulubahooda Allah ka buskaysiyo isbitaal in loo furo oo dhowr baan la hadlay wallahi in isbitaal loo furo maahan wax ka saari kara ilaa la arag waa dad aad u xanuunsan sababtoo ah soddonka sana lagu guraya been iyo colaad baa lagu guraya aan jirin colaad iyo beenta iyaga kuwa leaderka u ah baa number 1 ka ah dawladii hore soo dumiyay ayagina kala diray gobolkiina isu keeni waayay marka Somaliland baa nala dhahaa been way waxba kama jiraan jeegaan laan bay isaaq bay walba ahaayeen horta inta arunta Somaliland la sheegay walba isaaq bay ahayd dadka xoog lagu haysta ka saar wixii xoog lagu haysta iska ilow laakiin waxa raaliga isku ahaa beeshaas ay ahayd beeshina ku kala tagtay marka jeegaan laanay meesha aadaysa adaa og anagu dawladda hadda banaanka laga dhisay baan ictiraafsanahay oo Martin uu hogaaminayo waa Soomaaliland asagana Soomaalinimo nagu soo raacaya asaga Soomaaliya wixii Soomaalinimo nagu soo raacaan garab istaagayna anaguna oo anagana aan aqoonsanayna marka taasina waa tii ahayd qabyaalada qaran maxaa laga bartay marka qarannimo waxaa laga bartay maatadii inay u danaysay waxaa laga bartay maanta inay hobyo weligood aan dakad looga dhisin saaka dakadii shalay la soo dhagax dhigay in maanta dhismaheedii la bilaabayo loo diray maxay to already loo diray kamariyaashi dhisi lahaa iyo kormeeryaashii waxaa laga bartay hooyo iyo ilmaheed kala irdhoobay oo kala sabray in la isu keenay oo xabsiyada looga soo daayay waxaa laga bartay maskabkii iyo munaasibkii Soomaaliya lahayd iyo sumcadeedii in la soo celiyay waxaa laga bartay in hawadoodii maanta ay gacanta ku haystaan dagaal ugu jiraan inay soo cishaan xuduudahoodii iyo maarta badoodii
waxaa laga bartay in macnaha shaqa abuur dhalinyaradoodii ka silcayso badaha iyo tahriibka ku ordaysay inay shaqa abuur u sameeyeen mid ciidan noqda iyo mid booliis noqda iyo mid military noqda iyo mid xafiis fariista iyo ay 100 nooc shaqa loo abuuray oo nin walba maanta uu fadhi ku talis yahay oo jeegiisu ugu soo dhacaya xataa bangi uusan ahayn gacanta qof loo saaray ma garad dad dawlad bay u ekaadeen dawlad marka cunuga dareem waxaa galay macnaha dareenku cajiib weeye dhalinyarada ninka noocaas u ordahaya ma umalaysaa tuug dambe inuu sirahayo oo oranayo kaale in hebel baatay qoriga iga qaad u malayn maayo haba ka yaabin marka qarannimadu waa macnaha sharafta iyo karaamada iyo macnaha quruxda dal iyo dad leeyahay wey dad iyo dal quruxdiisa wey waa karaamadiisa waa sharaftiisa waa maaragtay horumarkiisa dawlad la-aan laguma horumaro qabiil horumar lagu gaari waa la isfatatir hadday noqoto isaaq ha noqoto hadday noqoto hawiye ha noqoto 27 sano hawiye isku bedel wadankii qaran waa keeni waaye sababtoo ah qabyaaladii waa ka dhamaan weyday qabyaalad bay ku dhaqmayeen waysan daacad ahayn way iska qabyaaladii iloobi waayeen kii fuulaba qabyaaladiibu ku dhaqmayay marka wixii waa kala burburayaan marka qabyaalada aan la iska daynin qaran laguma noqdo qabyaalad qaran lagu noqdo si kastoo la isu fatatiir waxba la qaban waayo wadankii waa omas waa abaar waa foolxumo waa gaajo waa biyo la-aan sababtoo qabiilku wax ma buuxin karo waxna ma kafayn karo hargeysa hadda nolosha cirkaas isku shareertaa layidhi sababtoo ah de waxba wax kale waa keenaysa inay wax soo gataan meel waxba ma dhoofinayaan haye shilinkoodi waa currency inay wax ku gataan oo dollar wax adag ku gataan oo lacag adag ku gataan wey wixii wadankii ma soo galayso wax inkaba ma leh xoogaagii hay-aduhu keenaan tuuga kala qaybsanaysa oo daacad kama ahan oo sidii ay wax u helaan wadankii wax u gelin maayaan ugu macnaha maalgashi iyo macnaha ganacsatada yaryarna ma kabayaan beerihii ma samaynayaan macnaha wax nin walba jeebka ku ridanaya afar baa jeeb ku ridaysa berri baa tagaysaa mid walba berri baa tagaysaa yaa ku taagan berri baa tagaysaa ee bob yaa ku taagan marka maxay dal u qabanayaan shacabkooda intaasna la yimid hadday nabad noqoto iyo hadday dhismo noqotona shacabkooda qabyaaladii ka badatahay intaas qurbaha ka kaxeeyey oo sameeyey ma ogiye dawlad u samaysa ma jirto runtii marka laga hadlo sababtoo ah maxaa weeye maxay to intiina hadda loogaba sii dariyo khatar bay ku jiraan waxna aad bay runtii nolosha u adkaatay hadda xilliyadan oo biyo la-aan ba hataa ka jirto magaalada 2 qaybood bay u go-an tahay oo qayban xataa biyo lahayn oo dadku mar walba aad uga cabaadaya marka biyihii baa hargeysa kaliya iyo burco iyo biyihii gaarsiin waayeen maxay kale umad gaarsiin karaan marka ay deeqsiin karaan ay kula tahay abaarihiina horta qoladii maaragtay garxajis iyo macnaha xisbigii wadani saan sheekada ku helay waxay u soo qaxeen dhanka Puntland iyo dhulka kale u soo qaxeen markii abaaruhu aad u dhaceen diiwaan galinta xataa looma helinba fursad sababtoo ay ka soo guureen wadankii gaaji iyo abaar bay uga soo guureen marka dadka noocaas qabyaalad maxay tari marka muxuu qabiil tari karaa been baa la isu sheegaya qabiilku wax alla wuxuu ku filan yahay male ilaahay baan ku dhaartay ilaa cadaab ma ogiye adduunka ciriiri iyo rafaad adduun iyo cadaab aakhiro intaas waa qabyaalada Soomaalida ku filanta marka iimaanka Allah Soomaaliya ku soo cesho shaydaanka Allah ka qabto shacabkana waxaan uga degaynaa dadkan horta maaragtay la sheegayo oo ah maxay to nimanka la mucaaradka wax mucaarad la yiraahdaa ma jirto waa danaystayaal dantoodayna u socdaan kii meel waayana dantiisu u ordaya shalana dantiisu u joogay annaga nooma shaqaynayn ayagaa isku markhaati furay kii mucaarad la soo jeesta annaguna asagaan kusoo jeensanaynaa haddaba saa ha ogaado waliba sambaloshan hadda usii messajkan usii marinayaa meeshaan runta markaan sheego shalay maxaafada afkaagaad haysatay wixii dhacay waddankan iyo wixii problemkii iyo qalbi dhaxna asagaa ka dambeeyey daaminaysa askari ama waxaad kusoo sifoobaysaa sarkaal Ethiopia u shaqaynaya inaad ahayd ama waxa Soomaali baad noqonaysaayo dalkaagii iyo dadkaagii baad u danaynaysaayo mucaaradnimada iyo waxaan macnaha lahayn oo foosh xun baad iska daynaysaa haddii kale la hadda sarkaal gabra awal baan Ethiopia dad badan meesha waa uga tagteen waa ognahay kamid baad noqonaysaa waan iska ka celinaynaa warku waa intaas marka nimanka maxay tahay mucaaradka ahi cagaa meeshan Soomaali meeshan wax la mucaarada ma yaalaan dawladdaani si fiican bay u shaqaynaysaa wax dhaliil ay maanta leedahay oo la taagan tahay male dhaliil wixii yimid maxay ta laga tirsanayeen waa la xisaabtan baa imaan kara laakiin wax la yiraahdo mucaarad ma imaan karo dawladdu waa dad open ah oo idin furan waa mideeye iyo madaale waxba idinka hadlayn ma hayaan mideeye iyo madaale waxba idinkama hadlayna inay waxdii hagaajiyaan maahan marka ninka diidanow waa inaan waxba u hagaagin Soomaaliya doonaya ninka diidan maamulkan maanta jooga iyo nidaamka dawladda u socoto waa nin ka soo horjeeda
qarannimada iyo wadajirka iyo horumarka Soomaaliya runtu taas weeye waa nin danaka dad kale u adeega waa nin aan damiir lahayn sababta wax lagu mucaarado meeshaan ma yaalo horumar iyo maalinba maalin ka dambaysa tallaabo horumar inay qaadayaan ma ogi tallaabo dib u dhacba ma leh qalbi dhagaxna waa la mashibay ninkaas laftigiisa mashiinka ka dambeeyay oo dawladda ku mashibahay oo Itoobiya u shaqeynayay runta marka laga hadlo meeshii laga soo qabtay iyo nidaamka u dhacday kulli waa la wada ogyahay waa tu afka goosanay ra'iisul wasaaraha lagama hadlayo waa xasaasi oo mikrofoonka dafahayay saqiir kabir waa la wada daawaday marka runta marka la soo sheegayo wali gabrayaal baa naga buuxa marka waa la hal siibaya hal adkaysto hal be patient hal dul qaato dhashi gabro dhan meesha waa la siibaya waa la hal siibaya insha Allah ta'ala mid kale oo horta ay ku fiican tahay 4.5 ugu riyaaqay waxay tahay waaba haddii mid la siibo walaalkii baa la keenay marka maba oran kara reer hebel baa wax la yeelay maba la dhihi karaba sababtoo meeshii kan laga siibo kan in adeerkii baa la keenay marka maxaa lagu qaylin hebel daa shaqaysan weydi kana shaqaysanaya ku filan maxaa yaa la mucaaradi marka talbeela yaaba loo dhihiba waaba dhamaad sheekada isku dhamaatay walaa mar hadda positionkaas markaan fiirso 4.5 inta bay faa'iido ku leedahay marka xilligan la fiirsho lagu jiro reality sababtoo ah hadda diinka la siiyo dadnimo xumadiisa ama jaajusnimada ama shaqo xumadiisa lagu ceersho talbeela reer hebel baa ceersho la oranayo reer hebel laakiin hadda mid kale siiba walaalkiisu baa la keenay maxaad marka ku qaylin yaa qaylin marka meel laga qayliyo male iyo meel maartay wax la mucaarado meesha waa dhamaatay macnaha waxa cadaanayso qofka asaa shaqaysan waayay kii shaqaysan waayay madaala u taagan siibaya siib madaale ilaahay afka iyo cagaaba kuma day maskaxda Allah ku saayay cimrigaaga Allah dheereeyay siib kii shaqaysan waayay hala siibo waxa la oo bartay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isku dhagan iyo ra'iisul wasaare shaqadiisa ku haysto farta ugu fiiqaa loo bartay ma jirto ra'iisul wasaaruhu baarqab weey shaqadiisa asaga wadanaya asaga iska leh asaga xor u ah wadankiisa asaga u dhaartay asaga u taagan waana u jeednaa in wadankiisa u adeegayo nin u taagan u adeegayo qofkii la jaan qaadi karowna de la jaan qaad kii la jaan qaado waa de tareenka wad ka dhici ninkii la jaan qaadayana la keenaya warku waa intaas marka meeshaan hebel baa 4 sano isla dhamaysanayna 4 sano aayad baa marka lagu la dhamaysanayo aday kugu xiranta 4 sano inaad la dhamaysato inaad la dhamaysan qofka shaqadiisa ku xiranta ninka la yiraahdo hadda maartay balan ka soo qaadna baylo kale mudana bayle ilaahay jannada ha ku fogeeyo kaas cimrigiisa Allah dheereeyo ilaahay nagama qaado ilaahay noogu kaadiyo cadawgan Allah nooga qabto Soomaali meeshuu gaarsiiyay inta yar uu joogay de wax macnaha qiyaasi ka raad ma waa wax qiyaasta ka fog weeye markay xilliga marka loo fiirsho iyo xaaladda wadanku ku sugnaa iyo meeshuu markiiba soo gaarsiiyay de waa wax macnaha runtii macnaha xaaladda aad u heer sareeyo aan macnaha qiyaasta binaadna hataan qiyaasta ka sii fog weeye waa wax qiyaasta ka sii badan hataa marka qofka shaqaysta anagu indhaha saasaan ugu haynaa xildhibaano wanaagsan baan leenahay tiro badan kuwii haddana mucaaradka ahaa iyo qaylin jiray ilaahay waa u raayaan u malaynayo ilaahay khayr ha siiyo iyaguna shibtooda ay xiraan dantooda ay u qumeen waxa way dalkoodii dantooda inay garteen baan rajaynayaa maaragtay waxay noqdeen indha run bay ku booyaan saasay arkeen qofka ishaqaataha xataa iyaga laftigiisu waa dadnimo oo markii xaaladdu arko meeshay marayso dantiisa u quma oo dadkiisa dhinac ka raaca ayadana waa dadnimo waa karti iyada laftigeedu iyo xirfad ما شاء الله marka waxaan rajaynayaa nimankii badnaa xildhibaanada dabada ka riixi jireen waa la iska baabay runtii baa la wajahay dawladdan waxay tahay waa la arkay dawladdan waa deeqa dawladdan waa hogaaminaya mideeye waxaana maamulaya madaale insha Allah ta'ala waxa u beeqaaminaya waa bayle ما شاء الله تبارك لقى مش كين كرو إلهي وحسوا سعدي ده كوا بدنا مقعدي بقى نهاين مؤجية لكن سيدا بيلا مركز أصاب بحام وسيردو ويقال وأساسا وده بحيسرينا حلي بقى ندنا سيدا كلا سيدا سكريو كلا مركز معنا صوّد عن بحان أيقال وأوتاجنا وأنا نيم جرينا وأنا جمانا تجايا وأنا حسوسنانا وأنا منشي جرينا ملك سنة وكشيجنا قف كي وناكسن كي حنا أساسا وشيجنا كي وناكسن وشيجنا نو ما كلا سكر نو البوح ناقبته يقعد كل نوجستو يعني أنا تاسع نقول حرنته si kala wax lama joogno waxaad na tustaan na tusoo na taabsi weey marka wanaaga aad ka shaqaysan kii wanaag ka shaqeeyo Soomaali u shaqeynayo hadii xilka laga qaado xanaaqi maysid volunteer ku sii shaqeey waxa kale wali Soomaali u qaban karto meeshaadi kaga sii garab gal waa hadaa ru sheegaysay weey hadaa adigu dan lahayna hada labadaadi dhagax qaado anagu 10 dhagax baan ku qaadanaynaa go ahead kii badiya hal arkay marka saas u ogaada qabyaalad faa'iido ma leh
maxay ahayto nimankan dadka qofkii xilka laga qaado carooda waxaan u garanaynaa inuu macnaha oo mucaarada dawladda inuu asagu danaysanaya inuusan shacabka u shaqaynayn baan yaan isaga markhaati kacayna oo annaga indhahayaga markhaati karnahay oo saa ayaguna ha u ogaadeen ninkii siyaasad rajo kala how iyo hami siyaasad oo shacabka ha ka shaqayso xilligii tolbeelay waa dhammaatay waxaa soo martay qof walba wuxuu shaqaysto shacabka Soomaaliyeed ka shaqaysto uu leeyahay qabiil iyadoon ku xirayn waxaad u shaqaysataa leedahay halka markaad wax wanaagsan qabato dadka waa bislaaday shacabku waa bislaaday wax u qabanaya rabaan qabyaalad ka daaleen waxba waa u tarweyd meel waa ku gaari waayeen hoog iyo baana waa baday marka waxa meesha maanta taala oo la isugu soo imaanayo waxa weeye maxaad noo qabanaysaa haddaan Soomaalinahay maxaan ka aragnaa wanaaga wixii wanaag noo qabato yaa wax ku leedahay adiguna taasaad natiijada jawaabteeda naga helaysaa kii xumaan la soo aadana sidoo kale weeye marka isku soo wada duubo mucaaradku ha iska nastaan baa oran lahaa dalkoodii dadkoodana ha la shaqeeyaan maanta sharci hadduu waaye kaalin dee markii ilaahay u calfuu heli wixii maanta uu ku waayena hadde isagaa sabab u ah waa qadar rabbi laakiin sababteeda uu leeyahay shalay markii la dooranayo xilka loo dhiibahayayba waa la qoonay waxba kii un baa tahay haddii shalay adigu un baa shalay lagu dhiibay maanta lagaa qaaday shalay wixii baahida lagugu dhiibay un baad maanta kasoo bixi weyday waa intaa period intaa kusoo faham sheekada intaa kusoo kooba qofka waa run shaqada marka hore waa loo dhiibay hadduu kasoo bixi waayana uu maara shaqadii loo dhiibtay sida loogu dhiibtay uga soo bixi waayana dee wuu ka tegayaa ilaa meesha ma ahan dhaxal ma ahani marka sidaa daraaddeed ragga mucaaradka ah oo dhagxaanta markay xil waayeen lasoo istaagayo annaguna waa idan aragnaa dhagxaantiina kuwa ka badan ayaan idinla taagannahay taas ogaada marka ka tanasula ilaahay ka baqa dalkiina dadkiina u daneeya muxaafidnimadiina ahaada dawladdiina la shaqeeya dadkiina garabta raggaan maanta yimid bari ba iska tagayaan laakiin wax wanaagsan bay insha allahu tacaala ka tagayaan meel fiican inay uga tagaan baa la rajaynayaa oo 4.5 laga baxay oo qof walba wuxuu shacabka ka shaqaystay uu ku leeyahay oo dal iyo dibad macnaa isha lagu hayo qofka macnaa selected uu yahay kii marka hantida weyne markuu soo galayba boob bilaabay ama mucaamaro bilaabay haddee waxaad kusoo noqonaysaa anuu ma garanayo inaad xoog kusoo noqoto ma ogey wallahi wax soo noqonay xoogna dhammaah itusoo itaabsi weeye hadda marka creditka wixii idin ka halaabay kii creditku ka halaabay soo dhiso maqaldama waa ilaahay wixii ka halaabay dib soo dhiso soo korse shacabkaaga la soo shaqee kuwa day jilicsan la soo shaqee meelaha shacabkaaga iyo meelaha dawladdaadu maaragtay kaalmada uga baahanta ka kaalmee dadkaaga soo korse waa wixii ka halaabay waad soo dhisi kartaa magacaaga wixii aad ka qarimay dib aad u hagaajin kartaa waa haddaad doonayso haddaad maaragtay degdeg jaranjarta inaad ugu soo noqoto doonaysana waa taad eedaa inaad ugu soo noqonayn degdeg ugu soo noqon mayso soo korse camalkaaga soo wanaaji waxaad aad ugu dhaliilay soo hagaaji macnaha shicibkaaga usoo shaqee wax wanaag iyo shaqo wanaag ugu bedel si loo iloobo xumaantaadii hore laakiin intaad aad maal leedahay xoog baan awal ku jiro xoog baan meeshay baa laga kaxeeyay xoog kusoo fuulahaya iyo dawladdan barashar saarahaya iyo waa in meel la ii dhiibaa taas hadda waa la isugu kintagahaya hala iska ogaada taa yeeli mayno madaalana yeeli mahayo maxay tahay midaayana kaalinta shaqadiisaba maaha halkaas asaga shaqadiisa asagu waa haystaa laakiin madaalaha hawshiisa wallahi loogu tagay cidina idinku soo dhexgalayna shaqadiina qabsada waxaan idin dabagelin oo dan idinka gelin baad u barateen marka ilmaada riyaalo oo Soomaaliyay ilaahay Soomaali ha mideeyo oo ilaahay qulubtooda ha hagaajiyo oo ilaahay sharta ha ka qabto oo mideeyo iyo madaale ilaahay ha noo daayo oo bayla Allah noo daayo oo kuwa la midka Allah noo daayo oo inta wanaaga jecel Allah noo daayo oo dhalinyaradeena xooga dalka Soomaaliyeed Allah noo daayo cadawga Allah nooga qabto dhalinyaradeena xooga dalka Soomaaliyeed oo maartay dal u dhimanayo dalkooda habeen iyo maalin u taagan war askarteena aan garab istaagno war ciidan lahayn maxay to balaaya hoofayso war haddaadan ciidanka adigu dhisan nin ciidan ku dhisayo male war nin sirtaada ogaaday hadda waxba ku qaban mahayo war ilaahay laga cabsado war Soomaaliya waxaan hurno war ciidamadan aan wax u hurno oo kan dhaawacmaan ogaano oo gabadh yarta faa'iiso kala aan ogaano si ay ku kala ugu noqoto macna kuwa kala ay yadidiilo iyo maarta ay ugu noqoto niyad oo kuwa maarta naga dhaawacaan ogaano oo ciidankeena naftooda inoo hureena aan shilinkeena u horno oo aan isxilqaano ilaahay ka cabsano dalkeena waa hooseeya dhaqaale ma lahan waa dal muddo badan burbur ku soo jiray inaan iska cam qabano u baahan yahay inaan wax u horno u baahan yahay kuwa dalka jooga oo canshuurta bixiya oo ilaahay ka baqa habarta yaanyada gado canshuurta bixi faa'iida dhulkaaga lagu ilaalinaya
ammaankaagaa lagu ilaalinaya jidkaa lagugu dhisaya biyaha lagugu ilaalinaya korontadaa lagugu soo daynaya caafimaadkaagaa lagugu hagaajinaya fadlan canshuurta bixiya oo barta inaad canshuurta bixisaan adduunka o dhan canshuurtaas shilinkaa taanataanada canshuurta la bixiyo ku dhisan yahay oo wax loogu qabtaa marka mideeyo iyo madaalana waxaan u rajaynayaa in ilaahay ku guulayo xilkay qabteen waddan fiican bay saaran yihiin ilaahay ha u dhammaystiro cadowgoodana allaha ka qabto cadowgooda allaha qabto cadowga dowladdeeda allaha qabto mid madow iyo mid cad mid dhow iyo mid fogba allaha naga qabto ilaahay taasaan u weydiinaynaa ummaddana allaha noo qasbo gaal iyo islaamba soomaaliya allaha u qasbo allaha u dharbaaxo wax inay noo soo allaha wanaagooda noo soo jeediyo shartoodana allaha naga dabaalo shartoodana allaha naga xijaabo gaal iyo caddaan iyo carabba shartoodana allaha naga jeediyo khayrkoodana allaha na soo xijiyo marka hadda caawa intaasaan inkaga tegayaa waxaan ku dardaarmaynaa inaan khayr baan isku ogaanaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa dowladdeena nabad iyo nolol baan uga baryaynaa shacabka iyaga midnimo waartaan uga baryaynaa ilaahay idankii midnimo waarta raas kambooni ilaa raas casayr midnimo waartaan uga barinay soomaaliya iyo kuwa dantooda fahmaan uga barinay ilaahay uga barinay dhalinyaradaas waqooyi oo balada laga buuxiyana ilaahay waxaan ka baryaa qulubtooda inuu nadiifiyo ayaguna kuwa ka fakaroo runta fiiriya inay noqdaan ilaahay qabyaaladda iyo balada maaragtay ka buuxda qulubahooda ilaahay ha ka nadiifiyo isjacaylkeena iyo wanaaggeena allaha tuso allahna waafajiyo saasaan idinka tegahayaa walaalayaal waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh insha allah mar danbaan is arki doonaa insha allah ilaahay idinkiis assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh